dabaaldegyo waaweyn ayaa ka socdo magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland kadib go'aankii ka soo baxay maamulka Yuhuudda ee ay dal madax bannaan ugu aqoonsadeen maamulka Somaliland. khadka fogaan aragga ayay ku wada hadleen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Somaliland iyadoo oo Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu sheegay in dalkiisu uu dal madax bannaan ula tacaamuli doono maamulka Somaliland. kadib intaasi markii ay dhacday madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa isagana caawa jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa taasoo uu kaga hadlay aqoonsiga ay heleen ee Israa'iil ay siisay isagoo xusay in 34 wadan oo horay Somaliland dal madax bannaan ugu aqoonsaday ay rajeynayaan inay mar kale ay ku dhawaaqaan. wuxuu xusay in Israa'iil ay ahayd dalka markaasi ugu horeeyay ee xilligaasi aqoonsaday 35 wadan oo 50 sano ka hor Somaliland u aqoonsaday dal madax bannaan. haddaba wadamadaasi kale ee 34 yaa ku jiray maxaa ka jira sheegashada mas'uuliyiinta Somaliland in horeyba 35 dal ay Somaliland dal madax bannaan u aqoonsadeen goorma la aqoonsaday waan dul istaagi doonaa. dhanka kaleeto dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeedsatay go'aankaasi Yuhuudda ka soo baxay iyadoo waliba dhabarka ka togatay isla markaana xustay in Israa'iil markii horeba Soomaaliya aysan u aqoonsanayn dal madax bannaan ay u aqoonsanaayeen fallaago dhibaato ku haysa gobolka bariga dhexe. haddaba go'aankaasi oo golaha wasiiradu ay soo saareen ayaan iyadana mid iyo labo ka dul istaagi doonaa. dhinaca kaleetana wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Djibouti, Masar, Turki iyo Soomaaliya ayaa shir degdeg ah ku yeeshay khadka fogaan aragga iyagoo oo go'aan culus ka soo saaray go'aanka fulaynimada leh ee markaasi lagu kala qaybinayo dadka Soomaaliyeed ee Yuhuuddu ay bilowday. haddaba maxay sheegeen golaha andhehe wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi aan horay kusoo xusay iyadana mid iyo labo ayaan soo qaadan doonaa. warbaahinta caalamku maxay ka qoraysaa go'aankaasi ama heshiiskaasi Somaliland iyo Yuhuuddu ay wada gaareen iyadana mid iyo labo ayaan ka dul istaagi doonaa. dabaaldegyadan ka socda magaalada Hargeysa iyo sidoo kaleeto shacabkan isku soo baxay iyadana waan soo qaadanaya. soo dhawaada idinkuna aragtidina inay gula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabe kadib go'aankii ay wada gaadheen madaxweynaha Somaliland iyo sidoo kaleeto ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee markaasi la sheegay in lagu aqoonsaday maamulka Somaliland magaalada Hargeysa waxaa ka bilowday iyo waliba guud ahaan Somaliland dabaaldegyo ballaaran oo dadka shacabka ayaa isku soo baxay iyadoo dhanka kalena taliyaasha ciidamada wasiirada xukuumadda iyo sidoo kaleeto mas'uuliyiinta kala duwan ay baaqiyo u dirahayeen shacabka in la adkeeyo amnigiisa. waxaa dhanka kaleeto iyadana madaxweynaha Somaliland u jeediyay khudbad dheer oo kaga hadlayay aqoonsigaasi u soo hoyday maamulka Somaliland ee Yuhuuddu ay ku aqoonsatay isagoo xusay in 1965 ayaa Somaliland 35 dal ay u aqoonsadeen dal madax bannaan. Yuhuudduna ay markaasi u ololeynaysay in Somaliland ay noqoto dal madax bannaan oo ay ahaayeen dalkii ugu horeeyay ee aqoonsada maamulka Somaliland. waxa uu xusay in maanta guushan soo hoyatay ay tahay guul weyn. 34 dal oo kale oo xilligaasi aqoonsadayna ay wadada ku soo jiraan oo ay dal madax bannaan u aqoonsan doonaan Somaliland. iyadoo la ogsoon yahay Somaliland in ay tahay maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliyeed dhinaca dowladda federaalkana aysan jirin ogolaansho haddana waxaa jirta ololo ballaaran oo 34 sano ugu dambeeyayba madaxda Somaliland ay wadeen taasoo ay ku raadinayeen inay helaan itraaf ka madax bannaani markaas inay ka go'aan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inteeda kaleeto. si kastoo noqotaba maanta Yuhuuddu waxay sheegtay in markaasi maamulka Somaliland ay ula tacaamuli doonaan dal madax bannaan isla markaana ay xiriir diblomaasiyadeed ay yeelan doonaan taasoo maalmaha ugu soo aadan la filayo in labada dhinacba ay markaasi safaarado kala furtaan isla markaana ay safiiro ay markaasi labada dhinacba ay soo kala dirsadaan. arrintan Yuhuuddu waxay uga gol leedahay in Somaliland ay ku yeelato galaangal ballaaran
iyo weliba inay hesho saldhig military oo ay ku yeelato badweynta Soomaaliya qaybta ku aadan Somaliland iyo weliba gacanka Carbeed oo ah gacan istiraatiiji ah isla markaana ay markaasi Israel haddii ay halkaasi saldhig military ay ku yeelato ay galaangal xooganba ku yeelan karto guud ahaan bariga dhexe iyo weliba geeska Afrikaba. Israel waxay kaleeto uga gol leedahay in markaasi ay Somaliland ka dhaadhiciso in dadka reer Falastiin ee dagaalka xoogan iyo dhibaatada ay ku hayso in markaasi loo soo masaafuriyo Soomaaliya oo weliba Somaliland ay qaabisho oo qaxooti ahaan ay u qaabisho. waa qorshayaal istiraatiiji oo muhiimad weyn u leh dhinaca markaasi Israel. sidaa awgeed ayayna markaasi u leedahay waxaan aqoonsanay maamulka Somaliland oo xiriir diblomaasiyadeed ayaan yeelanay. arrintan ayaa ka cadhaysiisay shacabka Soomaaliyeed iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya. shir degdeg ayay golaha wasiirada ka yeesheen, go'aano culus ayayna soo saareen taasoo ay ku xuseen in markaasi Soomaaliya aysan marka horeba dal madax bannaan u aqoonsanayn ama dal jira aysan u aqoonsanayn yuhuudda, isla markaana go'aankoodu uusan waxba ka bedeli karin jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayna waxba ku kala qaybin karin. waxaa arrintan sidoo kale ka falceliyay siyaasiyiin waaweyn oo xilal kala duwan soo qabtay uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay midaysan yihiin isla markaana aan lagu kala qaybin karin siyaasad aan ujeedo lahayn oo markaasi uu la jeedo mowqifka Israa'iil ay doonayso inay bulshada Soomaaliyeed ay markaasi midnimadooda iyo wadajirkooda ay ku dhaawacdo. golaha wasiiradu si adag ayay u cambaareeyeen waxa ayna xuseen in markaasi sharci caalami lala tigsan doono maamulka yuhuudda ee ku dhaqaaqay in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed la kala qaybiyo. shacabka Soomaaliyeed ayaa iyadana meel walba kaga hadlaya iyadoo arrintaasi ay u arkaan mid markaasi aan suurtagal ahayn. dhinaca Somaliland iyadu dabaaldegyo ayaa ka socda oo waxay leeyihiin anagu waxaan helay ictiraafka muddada dheer raadinaynay. si kastoo ay noqotaba dhaqaaqyo ayaa socda dhinacyo kala duwana. dhinaca Somaliland waxay sheegeen in amniga la adkeeyo, in bulshadu ay horay usii socoto, in waxa weeye tallaabooyin kale horay loo sii qaado, in ictiraafka la dhamaystiro, wadamo badan la raadiyo, in meel walba la geeyo codsigayada iyo hadafka. waa khudbadii madaxweynaha maamulka Somaliland ayay ka mid ahayd. waxa uu sidoo kale Cabdiraxmaan Ciro uu fasaxay shaqaalaha dowladda muddo 2 maalmood oo uu ku sheegay aqoonsigaasi la helay awgeed in 2 maalmood oo maalmaha shaqada ay fasax yihiin shaqaalaha dowladda. waa soo hadalka uu dhigay. dhanka kale wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Djibouti, Masar, Turkiya waliba Soomaaliya ayaa shir degdeg ka yeeshay arrintani iyagoo markaasi wax iska weydiiyay go'aankaasi yuhuudda ka soo baxay sidii laga yeeli lahaa. waxa ayna wasiiradu ay isla meel dhigeen in markaasi la cambaareeyo, shir degdegana laga yeesho oo waliba waxaa la filayaa in jaamacadda carabtu ay markaasi isku imaan doonaan oo wadamada carabta isku imaan doonaan wasiiradooda arrimaha dibadda shir degdegana laga yeelan doono go'aankan ka soo baxay Israa'iil ee markaasi ay ku kala qaybinayso jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya faragelintan iyo xadgudubkan tooska ee markaasi ay ku dhaqaaqeen. waxaa dhanka kale iyadana socda isweydiino fara badan iyo waliba warbaahinta dalalka muslimiinta badankoodu ay aad u qaadadhigayaan go'aankaasi yuhuudda ka soo baxay waxa uu ka bedeli karo ictiraafka iyo waxa uu noqon karo danaha markaasi Israa'iil ay ka leedahay ayaa siyaabo kala duwan aad loo falanqeynaya. si kastoo noqotaba dowladda federaalku hawl cusub ayaa u bilaabatay, shaqo cusub ayaa laga sugayaa. ummadda Soomaaliyeedna sidoo kale waxaa la rabaa isku duubni, wadajir iyo midnimo inay muujiyaan. danaha ay leeyihiin yuhuudda ayaa ka weyn waxa Somaliland loo sheegay. waa dhab in markaasi ay yuhuuddu tiri waan ina aqoonsanay, laakiin aqoonsi yuhuudda iyadu ma haysata. maya ma haysato yuhuudda aqoonsi. danaha ay doonaysaa waxay tahay inay hesho meel ay galaangal xoogan u leedahay waxay doonto ay ka samaysan karto, taasoo micnaheedu ay tahay in ay doonayso inay duulaan qaawan ay ku qaado dalalka muslimiinta ee iyaga mowqifkooda iyo go'aanadooda ka soo horjeeda. in waxa weeye Somaliland ay noqoto goob dalalka muslimiinta looga duulo, in Somaliland ay noqoto base wax walba lagu faafin karo sida dhaqan xumada iyo waxyaabaha markaasi diinteenu aysan ogolayn. in bulshada Soomaaliyeed ay noqoto meel looga soo duulo oo dhaqamada xunxun iyo dhibaatooyinka markaasi looga sameeyo ama looga soo maleego.
marka qorshayaasha ay leedahay Israa'iil ayaa ka weyn waxa loo sheegay dadka reer Somaliland ee maanta ay u dabaaldegayaan maalinan maanta ahayn ayaana la fahmi doonaa waxa aan ka hadlayo si kastoo ay noqotoba xaaladdu wali way taagan tahay muuqaaladu waa isdaba joog muuqaaladu waxa weeye xoga cusub baa soo dhacaya boqor buur madoobe war la yaab la ka soo baxay Puntland iyadana sidoo kale war aan aad iyo aad ula yaabnaa soo baxay ba dhinacyo kala duwan ayay warar kale ka soo baxayaan muuqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa haddii